dowladda Itoobiya ayaa waxa ay wadaa dardar xoogan oo ku saabsan inay hirgeliso heshiiskii asafgaradka ahaa ee horey ula gaartay Somaliland. sidoo kale Somaliland waxay maalmo ka hor soo magacawday guddi ay ku sheegtay inay yihiin guddigii dhamaystirka heshiiskaasi isla markaasna la doonayo in guddigaasi si toos ah u shaqeeyo waxyaabaha madmadowga ee ka la horey looga shaqeeyay in meesha laga saaro. haddaba heshiiskaasi iyo weliba goobta lagu dhamaystiri doono iyo waxyaabaha Somaliland danta ugu jirto iyo Itoobiya xilligan hadda la taagan yahay sababta keentay in ay heshiiskan isaga ah ay xoogga ay saarto doonaysana inay gaarto xeebaha Saylac iyo Luqaya ayaan barnaamijkan si weyn ugu faaqidi doonaa. waxaana barnaamijkan igu heliyo saaxiibkay wariye sare waa Cabdixakiin oo inta badan ka faalloodo arrimaha Itoobiya iyo weliba Somaliland heshiiskan si weyn oo la socday. guddigii dhanka Somaliland laga soo magacaabay waxaa hogaaminaya Baashe Cawil oo horey u ahaa qonsulka u fadhiyo Somaliland dalka Kenya. hadda se loo xisaaray in heshiiskaasi isaga uu wakiil uga noqdo Somaliland halka Itoobiya lafteeda idan guddi noocaas oo kale ah ay soo saareen. soo dhawaad Cabdixakiin markaan ku soo dhaweynaya haddaan ku bilowno shalay bahdil xoogan baa ka dhacay Addis Ababa balse ku noqon mayno haddii aan fiirino dhanka heshiiska isafgaradka Itoobiya waxaad moodaa hadda in heshiiska asaga ay ka faa'iideysanayso maadaama dowladda caalamiga ah ay dagaalka inay kusoo biiraan laga yaabo intii uusan dhicin dagaalkaasi ama Soomaaliya aysan u diyaar garoobinba in hadda Itoobiya ay doonayso inay si xawli ah ay ku hirgeliso. وما صدق عكاش كل حالات يحسد أدو حوجم بكتاعن جيس كأفريقيا مركز السكوت والضرر Somaliland iyo Ethiopia oo dhinaca iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya oo iyaduna markaas ololaheeda wada haatan dhibaatada dhexmartay Ethiopia iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dan ugu jirtaa Somaliland marka dhinaca laga fiiriyo markaad fiiriso adiga baad arkaysaa inay xitaa wafdi u dirtay Somaliland oo haatan ay ku sugan yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo magaalada Addis Ababa waxa arrimahaasi ay muujinayaan in guud ahaan Somaliland haatan ay dan weyn ka dhaxarkayso khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia arrimahaasi xilligan Addis Ababa ka taagan iyo waliba xiisadaasi taagan waxa ay Somaliland uga faa'iideysanaysaa laba qaab waa in la dardargeliyo heshiiskii ay wada gaareen MOU ahaa ama safgaradka ahaa oo la doonayo in si degdeg ah loo ansixiyo oo markaas ay qalinka ugu duugaan qodobka labaadna waa mid ay rabaan in wafdigii Soomaaliya oo cadhooday oo ka tagay magaalada Addis Ababa in iyagu noqdaan cid markaa halkaas joogta ku matalaysa geeska Afrika oo markaas iyagu ka jooga markaas waxay u noqonaysaa fursad oo wafdigii celidin lahaa ee Muqdisho ka imaaday meesha uu ka baxay qalaasahan iyo dhibaatadana waxa keenaya waxa ugu badan ba waa in labadaas wafdi Ethiopia ay soo martiqaaday labadaba iyada martiqaaday laakiin iyadoo taas ay jirto horta martiqaadkan inta badan midowga Afrika ayuu Soomaaliya iyo uga imaaday oo martiqaaday Soomaaliya iyo Ethiopia martiqaaday iyada laakiin hadda waxa jooga wasiir ku-xigeenka Saalax Xamadan Soomaaliya ku matalay marka Saalax laftiisa marka ma dhaga saan u xina maya Saalax soo siyaasad ahaan wuxuu matalaya dawladda federaalka ah laakiin Saalax waa laga awood badan yahay mar haddii dawladdii saldhigga u ahayd meesha ay marti gelinaysay cid ay wadato madaxweynaha Soomaaliya la ereeyay Saalax meeshuu joogo waa loogi marka madaxweynaha Xasan Maxamuud meesha laga ereeyay marka Saalax isagu xaaladiisu waa dhageystay noqonaysa oo nin de galaan kale yeelan kara maaha meelaha shirarku ka dhacayaan meelaha la isugu imaanayo madaxdii magaranaysa federaalka dawladaha kale ka imaanayay loo diiday hawala kala qaranaya nimanka meesha xoog ku haystaan waa Ethiopian cid ay wataan iyo magaranaysa cid la rabaan iyagu marka inay sarkaan bay sarki marka waxaad leedahay marka Ethiopia hadda ku diyaarsan marka inay siyaasadda Soomaaliya ka iibiso midowga Afrika exactly sida socoto Ethiopia ay wax u wado waa sidaas waxaan doonaysaa inay magaranaysa ay Ethiopia ka iibiso wadamada kale Afrikaanka ah dhowr wadamo haysta Somaliland waxa loo martiqaadayna sababta ugu weyn loo martiqaadayna waxay Somaliland baa codsatay waxay tiri sir madaxeedka waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in Ethiopia iyo Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Abiy Ahmed inay ka wada hadleen markii xitaa safgaradka la isla gaarayay in shirka ugu horeeyay midowga Afrika ay yeelanayaan laga qaybgeliyo sax arrintaas soo baxday oo tilmaamaysa in xitaa uu kamid ahaaba safgaradka sax marka Somaliland waxay dan weyn baa ugu jirta halkaas oo inay qadiyadeedii geyso meeshii Afrika isugu imaanayeen oo halkaas magaranaysa ay kala hadasho wadamada Afrikaanka ah oo wadamo badan oo xitaa hadda Somaliland u ballan qaaday baa jira inay xitaa siinayaan aqoonsi haddii Somaliland ay hesho wadanka ugu horeeya aqoonsada in iyagu noqonayaan labaad iyo saddexaad
wadamo ballan qaaday baa jira Sax. waxaa kamid ah wadanka Guinea Conakry si fiican oo madaxweyne Musabbix Hadda goor tegey, si fiican. uu tegey wuxuu u ballan qaaday inay aqoonsanayaan Somaliland haddii wadan East Africa ku yaal ama Geeska Africa ku yaal Hadduu aqoonsado. uu soo aqoonsado si fiican kawa u diyaar Mhm. wadamo kale jira iyagana Mhm. South Africa kamid ah sida wararku soo tilmaamayaan Sax. South Africa kuwa kii wafdoodii waqtiga tegey Mhm. South Africa iyadana waxay ku jirtaa wadamada safka hore iyagana la filay Mhm. wadamo kale iyaguna jiro Ethiopia ay rabtay inay kala dhiciso Mhm. oo Ethiopia ku daba safar Mhm. yaa jira iyagana Mhm. oo iyagana doonaya haddii Ethiopia bal la siiyo Mhm. inay siiyaan kuwan magarasha Aad u weyn. waxaana la ogeyn oo kale aan kugu sii daraya Cabdishow Mhm. in ay jiraan wadamada Afrikaanka ah boqolkiiba 70 Mhm. in Ethiopia la safan yihiin Safan. taa lama oga Haye. laakiin boqolkiiba 70 Ethiopia la safan yihiin haye Soomaaliya danta laga leeyahay way yartahay Mhm. laakiin wadamada hadda caalamku waxay isku raacayaan oo la isku riixriixaya wadan Mhm. adduunku danbu ku wada socda Aad u weyn. cid saaxiibtinimo iyo jacayl iyo wanaag isku raaxaysta Nin kasta dantiisa. haddii danta laga dhex arko waa lagu raaci Mhm. haddii laga dhex arki waayana waxay jirta dad laga laaday Mhm. marka waxay arkayaan Ethiopiaanka inay dan weyn xilligan ay ka dhex arkayaan Mhm. wadamada Afrikaankana boqolkiiba 80 waxay taageersan yihiin Ethiopia Ethiopia waa maasan tahay marka heshiiskan waxaa la sheegay in lagu dhamaystiri doono jigjiga maxay tahay sababta Ethiopia aysan u tegeynin Hargeysa oo heshiiskan la rabay in lagu dhamaystiro maadaama dee Soomaaliya hore ay diblomaadiyada u diiday madaxdii Ethiopia ka socotay inay tagaan Hargeysa tagaan Hargeysa tagtaan jigjiga tagaan may Hargeysa u gudbaan nin culays baa soo kordhay culayskaasi oo ah in aynan ka dhacaynin heshiiska marka hore waxaa lagu iskula gaaray in lagu saxeexo magaranaysaa magaalada Addis Ababa Mhm. oo ka dhaco saxiixa ugu dambeeya Mhm. wafdiye ka kala socda labada dhinacna ay tagaan Hargeysa iyo Addis Ababa Mhm. oo wufuud ka socota Ethiopia ay tagaan Addis Ababa Mhm. wufuud Somaliland ka socotana ay tagaan xagga Mhm. culays baa imaaday marka aan lagu tashanaynin marka hore haye oo dowladda federaalka ahayd baa soo kordhisay culayska Mhm. oo ka culayska hawada joojiski iyo Sax. wafdiye wufuudi la celinay wixii baa soo kordhay Mhm. marka waxaa la yidhi safarkaasi dheer ee Addis Ababa iyo Hargeysa waxaa ka fudud Mhm. safar jigjiga iyo maxaa la dhihi jiray waash Mhm. lamana kala saari karo oo Mhm. waa Soomaali ma fahanti? Si fiican, aad u weyn. oo dadkii lama kala bixin karo Mhm. marka jigjiga loo soo raray Mhm. Ethiopia hadda Addis Ababa markuu imaanay jigjiga markuu imaanay ra'iisul Ethiopia Abiy Ahmed markuu jigjiga imaanay Mhm. yaa laga wada hadlo kulan gooni ah baa laga wada hadlay Mhm. markii la imaaday Abiy Ahmed imaaday magaalada jigjigana wuxuu madaxweynaha deegaanka Mustafa Cabdir uu ballan qaaday in heshiiskaasi ay iyagu dhamaystiri doonaan taabageliyaan oo Musabbix iyo ninka la dhaho Mustafa Cabdir yaa hawshaas sii wadaya oo isma arkayaan Abiy Ahmed iyo Musabbix isma arki doonaan markii ugu dambeysay markaa wufuudda farsamadana waxay imaan doonaan jigjiga imaan doonaan oo masaafo ahaan jigjiga iyo Hargeysa inta isku jirto waa la socotaa oo aad bay isugu dhow yihiin xitaa habeen baa inta isku tagaa saacadaha la isla joogi karaa oo waja la isugu imaan karaa waxa la waraqaa la kala gudbin karaa marka sababahaas baa hadda culayska dowladda federaalka Soomaaliya ka imaaday ayaa sababay in Ethiopia ay keento xuduudka maxaa la dhihi jiray warkii ku saabsanaa sabgaradka iyo arrimahaasi waxaan loo xilsaaray labada dhinac waxay magacaabeen guddiyo kala duwan oo Ethiopia waxay magacaabday guddi arrintani u xilsaaran oo soo dhiraandhirinaya soo turxaan bixinaya soo taftiraya oo markii la soo dhamaystiro markaa keenaya meesha lagu saxiixlaa Somaliland sidoo kale soo saxiixday waad mahadsan tahay daawadayaal intaasaan barnaamijkan aan kusoo afeerinaa inaan la soconno in ciidamada bariga Harargii dhici karto laftooda inay u ruqaasaan dhankaas iyo Saylac oo maalin dambeeyay kusoo ciidamada maamulka Somaliland ee uu hogaaminayo Nuux Taani iyo waliba Baasha Fanax halkaasi ay geeyeen Luqaye iyo waliba Saylac ay maalin dambeeyay ku sugnaayeen intaan muuqaalka mid ay ku nabad ka tahay nasaasi nabad